kala yimid gobollada dalka oo halkan caawa nagu maaweeliyey nagana qayrasiiyey waa mahadsantihiin iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed halkii isugu yimid oo iyagu horeyso kooxda Bambeyda waxaan marka hore idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo adigu soo qayb gashaan una maamuusteen xafladan qiimaha badan waxaan rabaa mudane madaxweyne inaan ku bilaabno 75 sano kadib ayaan isugu nimid habeen ay hawo fiican ka jirto magaalada Muqdisho 75 sano kadib ayaan u dabaaldegaynaa xaflad dhalinyaro Soomaaliyeed oo mutaysatay in sanad walba loo dabaaldego 75 sano kadib 750 oo sano kadibna loo dabaaldegi doono haddii Ilaahay yiraahdo waxay ku mutaysteen in loo dabaaldego waxay dhaliyaan guusha iyo xorriyadda caawa halkan ku fadhidaan kulligeen waxay ku mutaysteen inay muujiyaan macno ka weyn macnihii ay ku fadhiyeen iyagoo da'dooda ay u dhaxaysay 15 iyo 21 sano waxay waqtigaas ku fikireen inay dalka ka xoreeyaan gumaysi waxay ku fikireen inay mideeyaan ummadda Soomaaliyeed waxay waqtigaas ku fikireen inay suuliyaan oo ay dalka ka tirtiraan qabyaaladda waxay waqtigaas ku fikireen inay ummadda Soomaaliyeed wax baraan bilaabaan qorista af Soomaaliga waqtiga iyada waxay waqtigaas ku fikireen iyadoo aanay maskaxda dad waqtiga jooga geli karin maadaama uu wadanka joogay gumaysi inay naftooda iyo dhiigooda ku bixiyaan inay gumaysi wadanka ka xoreeyaan sababtay ugu xoreynayeen waxay ahayd in caawa annagu halkan aan fadhino sababtaasi waxay ahayd in dadka iyaga ka dambeeya aanay arkin gumaysi dambe in dhidibada loo taago qaran Soomaaliyeed oo ay harsadaan dad Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryaynaa kulligood inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo waxaan Ilaahay uga baryaynaa awlaadii iyagu ay ka tageena in Ilaahay ku hanuuniyo dariiqa iyagu ay mareen annagu waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan tusaale anugu adeegno kuwa hadda iyaga da'dooda oo kala ah iyo kuwa naga dambeeya haddii Ilaahay yiraahdo dhalinyaradii waqtigaas jirtay ayaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo aqoonta ay lahaayeen way ka yaraataan hadda aan leenahay dhaqaalaha ay haysteen tiknoolajiyada ama casriga waqtigaas jiray isu socodka dhaqdhaqaaqa fursadda isabaabulku waa uu ka yaraa inta aan hadda haysano laakiin 75 sano kadib haddii aad akhriso buugaagta qaarkood waxaad ku arkaysaa gumaysigii ay la dagaaleen waqtigaa isaga ah gumaysigii ay la dagaalameen waqtigaa isaga ah si ay dalka u xoreeyaan annagana noogu aasaasaan nolosha aan maanta haysano waxay qireen Soomaalidu inay dadka ka duwanaayeen waxay qireen Soomaalidu inaanay aqbalin in la gumaysto waxay qireen dalalkii ay soo gumaysteen iyo Soomaaliya inay kala laba yihiin waxay aqbaleen Soomaalidu inay ogol yihiin dhiigooda inay bixiyaan si dalkooda ay u xoreeyaan taariikhdii ay noo sameeyeen ayaa qof walba Soomaaliyeed oo da'diisu yar tahay ama weyn tahay marka uu taariikhda ummadda Soomaaliyeed qaybteeda ku jirta baalka dahabka ah waxa uu ka hadlayaa dhalinyarada iyaga taariikhdii marka ay noo sameeyeen dhalinyaradaasi waa tan aan caawa halkan ku fadhino laakiin waa taariikh u baahan in la xafido su'aashaan rabno markii inaan isweydiino haddii aan dhalinyaro nahay ama dhalinyarada halkan joogta ama kuwii dhagaysanaya waxaa laga yaabaa in kusimaha madaxweynaha iyo aniga lafteydu aan isku tirino dhalinyarada laakiin su'aasha aan rabo caawa inaan halkan iska weydiino waxay tahay haddii taariikhdeenu ay sheegayso waxa laga soo maray qarannimada waxa laga soo maray xorriyad raadiska waxa laga soo maray in dalkeenu maanta uu joogo meesha uu joogo hana haysta dhib kale
سؤال شان سويدين وحي تاي تاريخ ذا إيدا سدابان وحفظنا سؤال شكلون سويدين إنه وحي تاي محل قدبون اللي يرى ذا ما أنت جوكت سيدا مرول بان شاقنو ودنك بقول كيف تضباطن إيشان وارد اللي يرى وحان هراو شاقي وانا مرر بدن هرتي نكغري إن هدي أتكثر سنتاي شركة داسنا يقيب سنتاي سامية دا يقيب سنتانا بقول كيف تضباطن إيشان يقف كل هذا فإذا دا شركة داس كسو بحضر بقول كيف تضباطن إيشان وحا إسكالا عدة له سامية بقول كيف تضباطن إيشان دلنيرة دا مانتي جوكتو وحا أي فرصة هلان مركا inay qaranka Soomaaliyeed hadii loo qaybiyo saami ay ku leeyihiin boqolkiiba 75 laakiin waa inay fahmaan marka hore waxa ay qaranka ku leeyihiin waa in la bedelaa dhaqankii ahaa qaranka iyo dawladdu aniga maxay tari kartaa oo lagu bedelaa anigu maxaan qaranka iyo dawladda iyo dadka u tari karaa macnaheedu waxa ay tahay macnaheedu waxay tahay haddii uu jiro wiil ama gabar dhalinyaro ah oo daadoodu ay u dhaxayso 15 ilaa 30 ama 15 ilaa 25 sano ama ku filah kuwa maanta aan halkan ugu dabaaldegayno waqtigii ay jireen waxaad isweydiinaysaa 75 sano kadib maxaad rabtaa ummadda Soomaaliyeed inay ka sheegto si wax lagaaga sheego marka oo taariikhda lagu qoro waa inaad shaqaysataa wiilashii gabdhihii waqtigaa jiray waxaa hortaagnaa gumaysi waxaa hortaagnaa dhibaato waxaa hortaagnaa qoray lagula dagaalamayo iyaga idinka maxaa idin hortaagan maanta idinka waxaa idin hor yaalla waddan xor ah oo waqtigu casri yahay oo la sheegay waddankiinu inuu yahay waddan aad u khayraad badan oo fursad dahabiya u leh inuu leeyahay shidaal iyo macdan iyo kalluumaysi iyo beero iyo ganacsi kale idinku waxaad fursad u leedihiin inaad adduunyada la tartami kartaan sababtoo ah aqoonta aad leedihiin laakiin waxaa isweydiin mudan maxaa idinka hor taagan inaad bilowdaan is-abaabulkii ay bilaabeen dhallinyarada aan caawa u dabaaldegayno waxba idinkama hor taagna keliya waxaa la rabaa inaad ku sifowdaan waxa ay ku sifoobeen waxay ahaayeen dhalinyaro wadaniyiin ah waxay ahaayeen dhalinyaro xornimada jecel yaabaa inay ka fikirayeen anigu maantay waxaan gelayaa dhib si dadka iga dambeeya ay u helaan noloshayda ka fiican waxaa loo baahan yahay marka haddii hamigiina iyo quluubtiinu ay u ballaaran tahay sida ay u ballaarnaayeen hamiga iyo quluubta dhallinyaradii waqtigaa jirtay iyadoo gumaysi jiro ayay raadiyeen midnimo iyadoo gumaysi jiro ayay raadiyeen xornimo iyadoo gumaysi jiro ayay keeneen xornimo soona celiyeen sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hadalka dawladnimada dhalinyaro inaan ficil ku bedelno waxaan rabnaa inaad ogaataan ku dhawaad 30 sano inaan ka soo baxnay dhib badan waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay bulukeeti la kor saaray maalin lagu daray saacad qof dheeraad uu shaqeeyay dulqaad qof uu muujiyay waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay qof codkiisa kor u qaaday oo yiri ma aqbalayo cadaalad darro waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay gabar Soomaaliyeed oo soo istaagtay oo tiri ma aqbalayo in xuquuqdayda la dhaafsiyo waxay tahay dawladnimadu dadka Soomaaliyeed oo qaba baahida gaarka ah oo yiri waxaan u baahanahay cadaalad waxay tahay dawladnimadu qof walba oo Soomaaliyeed oo yiraahda waxaan ahay Soomaali waxaan ahay muwaadin qabyaalad iyo xoog dalkan kama shaqeeyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay leeyihiin xuquuq isku mid ah kulligeena waxaan rabnaa xaqeena in la siiyo
dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan u sheego maanta ummadda Soomaaliyeed way ka fursad badan tahay waqtigii isaga ah way ka dhalinyaro badan tahay way ka xoolo badan tahay wayna ka aqoon badan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay dhalinyarooy inaad hurdada ka kacdaan dawladdan wax ka sugaynaa macnaheedu waxay tahay ma rabtaan inaad waajibkiina ka soo baxdaan dawladdu waa idinka boqolkiiba 75 shacabka Soomaaliyeed waa idinka dawladdu waa inay idinka baqdaan dawladda waa inaad xukuntaan dawladda kuwa ka shaqeeya ama madaxda ka ah oo anigu aan koow ka ahay kusimaha madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka halkan fadhiya waa adeegayaashii waa mas'uuliyiin la wakiishay ma ahan milkiilayaasha qaranka waa idinka الله naxariiste dhalinyaradii soo halgantay oo caruurtooda caawa halkan qaar kamid aan ku salaamay waxay nooga tageen dhaxal taariikhiga dhaxalkaas taariikhiga ah waxa u baahan yahay in la xanaaneeyo waxa kale loo baahan yahay dhalinyarada hadda joogtana inay ka tagto dhaxal markaad aragto taalooyinka magaalada ku dhisan ama kuwaasaa waaye loo sameeyay ama dal jirka daahson waa inaad fikirtaa oo tiraahdaa wiil ama gabar Soomaaliyeed ayaa halkan taalo looga taagay waxaa looga taagay inay lahayd ama uu lahaa macno ka weyn macnaha anagu aan leenahay sababta 13 qof oo dhalinyaro ah sanad walba 75 sano loo xuso waxay tahay macnaheedu inay mutaysteen wax inteena kala aanan mutaysan si qarannimada Soomaaliyeed meel loogu hubsado qofku waa inay mutaysataa waxaan dadka kala mutaysan karin qaar waa inay u kacaan qarannimada Soomaaliyeed qaar waa inay arkaan waxaan dadka kala arki karin qaar waa inay bixiyaan naf kuwa kala aan bixin karin qaar waa inay sheegaan run aan la sheegi karin qaar waa inay iska hormariyaan dad aan kuwa kale iska hormarin marka caawa maraba kaliya inaan dabaal degno anoo u mahad celinaya walaalahani iyo mas'uuliyiintii soo abaabulay xafladan maamuusan waxaan rabaa Soomaaliya gaar ahaan dhalinyaroy inay hurdada ka kacdaan si ay hurdada uga kacdaan waa inay ogaataan waxa aad haysataan waa inaadan ka noqonina marti guriga idinku aad degantiin waa inaadan suginina inuu qof gurigiina idinku yimaado oo idinku sooriyeeyo waa inaad ogaataan dalka idinku inaad leedihiin laakiin waa inaad isu abaabushaan si midaysan tayaysan hufan oo Soomaaliyeysan waa inaad isu abaabushaan si ka turjumaysa 13 Soomaaliyeed si ka turjumaysa kuwii xorriyadda noo keenay si ka turjumaysa waxa aad rabtaan caruurtiina inaad uga tagtaan 2018 ومهم إني نقطة سنة كده اللي يرى سنة كات كل جين سبب شان سنة كات ترادان ما أقبل إنه ما صدم ما أقبل إنه حق ضره ما أقبل إنه سياسيين إيجا كلية كتشدد دمتا ومد الصومالية سنة كات ترادان وعن ربنا إن لنا ما يصير الدستور سي حقوق ذا إن الله قرأ سنة كات به لهذان وعن ربنا ذلك إن لجارسية دور شق في عضة سنة كاتيه لهذا وعربنا ذلك إنه كحروا بتوكسي سنة كاتيه لهذا شرفتي كرامة الفضل الصومالية اللي يرى سوء علينا سنة كاتيه لهذا صوماليا وحاق عنك كوكب صديق عدي إسكالة هيد ما أقبلين عد الكين الدومينيس عاو مركا وحان رباه هدي لاهي هذا ولا إنه قارسيو سنة كان سنة كيسة وزيرده يدك سو أبابولي حفلة يدا وعن ربع سنة كان سنة كيسة إن الله يرد اللوجي يرالكم لو يدي سؤالها لبي تونك برود الصورة في وأنا كان السجون متكدب تالا دي أسوأ الماء يكوجرتا تالا دي شرفتي قرن مدر هذا كذا حجابي كوجرتا sidee bay kuugu muuqataa inaad noqonayso
qofka la rabo in 75 sano iyo 750 kun oo sano ummadda Soomaaliyeed ay u dabaaldegto waxaan rabnaa inay noo sheegaan inaanay dowladnimada cid ka sugay inteena haysa xukunka hadda na waxaan rabaa inaan u sheego inuu ammaano nagu yahay ammaanadaas aan xafidi doono marka aad soo diyaar garowdaan dhalinyaradiina ay dhageysanaysaa halkan fadhida oo 75% shacabka Soomaaliyeed ka ah oo ah mustaqbalkii iyo madaxdii barito marka aad soo diyaar garowdaan waxaad noogu imaanaysaan haddii Ilaahay yiraahdo ammaanadiina oo jabnayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan fadlan ila soo dhaweeya السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدن قدومي مدن رئيس الوزراء وزيرة سبورتك يعيارها وقالها وزيرة حفلة كسو قيب قلي لبدا قولها شعبك يقولها أقل كسره قولها الديقانا ذا قدوميها قبل كبنادر marti sharafta kale safiirada iyo diblomaasiyiinta dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo xafladan ka soo qayb galay Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa 15 May munaasabadan qaaliga ah anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ay kaga nool yihiin waxaan idin leeyahay hambalyo runtii munaasabadan waxay cabiraysaa fikir aad u weyn taariikh la xusa waxay macno uga fadhidaa jiilalka isbedela jiilkii SYL dhisay iyo jiilalkii kale oo dhexda ku jira iyo jiilka hadda jooga taariikhda waxay cadaynaysaa jiilkii hore SYL dhisay waxay la dagaalamayeen gumaysi cadow muuqda oo loo jeeda oo xabad kugu soo rida oo aad ku ridid ayay la dagaalamayeen maanta dhalinyarada joogta waxay la dagaalamayaan cadow aan muuqan ayay la dagaalamayaan waxa idinka sugayaa ilmihii agoonta aabayaashoodii la dilay waxa idinka sugayaa hooyaalkii asaayda qaaday waxa idinka sugayaa dadkii ku naafooway qaraxyadii iyo dagaaladii argagixisada waxa idinka sugayaa dadka bukaanada oo caafimaad darrada cusbitaalada u jiifa sababta maxay tahay waxaad leedihiin aqoonteeda waxaad ka mid noqoteen xukuumadda ra'iisul wasaare khayre uu ra'iisul wasaaraha u yahay waxaad ka mid noqoteen labada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaad ka mid noqoteen golaha deegaanadaad ka mid noqoteen taasi waxayna tusaysaa kelmaddii ahayd jiilka soo socda ama inaad tihiin xukunka kuwa sugo xukun sugaa inaad tihiin ku xukunka hadda gacanta ku haya aad ka mid tihiin waxaa lidinkaga fadhiyaa horumarinta waddankan ayaa lidinkaga fadhiyaa maadaama intaasoo hay-adood idinku aad ka mid tihiin waxaad ka mid tihiin ciidamada qalabkii sida markaan ka hadlayno hogaanada sare oo ciidamada qalabkii sida ayaad ka mid tihiin sidaa daraaddeed waxaa lidinka fadhiyaa horumar waddankan inuu gaaro biyaha markay meel fadhiistaan ay wasakhaysan yihiin roob markuu da'o biyo cusub ay yimaadaan sida quruxda badan u soo abaabushay iyo inta gacanta ay ku siisay dhammaantiin baa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
afarta aabbayaasha halganka ay dhaleen kusimaha madaxweynaha guddoomiyaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha asluubta taliyaha booliska iyo wasiirka dhalinyarada loo kala baxo waa mahadsantihiin ramadaan kariim ramadaan mubaarak insha allah